السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحن صح ميديا iyo saxan sax media group halkan idinka soo jeedinaya qaybtii labaad ee shanta sheeko iyo shaaha caawa waxaan idinku haynaa shan sheeko oo cusub aan idin haynaa shanta sheeko cusub ayaanu caawa qaadaa dhigaynaa oo qaybtii labaad ah qaybtii hore waa dhageysateen waxaan maaynayaa inaa ka hesheen qaybtii labaad baan caawa idin wadnaa weli waxaan ku darayaa in adeer hadaadan ka helin noo soo sheega waxbaa noo qarniyaa aanu ka dambayna noo soo dira waa la isasaxaa wixii haddaan sheekooyinka qaar ay ku jiraan aan fiicnayn hadday ku jiraan qaar aan qosol badnayn markasta waxaan rabnaa sheekooyin xigmadaysan oo la dhegeysan karo oo dee xataa ciyaalku ay dhegeysan karaan qaar kamid a marka insha allah commentiga nagu reeba wixii aragtidiinu waa tooshkayga ama ilaaska aan ku socon doono yaa qaadanaya taw aniga caawa noo bilaabayo sheekada koowaad noo bilaabayo waxaa jiray dhalinyaro ah ayaa gabadh shukaansi jiray gabadha soo shukaansi jiray gaari buu raaci jiray meesha xaafadda gabadha ay degan tahay magaala markan gaarigii maalinka dambe wuxuu ku raaci lahaa ila gaari lacaglaan la raacaya dadaas kale waa shidaal kusoo sirto gaari soo iibsaday u goosay intuu ku raaci lahaa goosay uu soo lugaya gabadha markii cishaha xilliga salaada cishaha ayay marka reerka odaygan masaajidka aad maamada ciyaalka ay kala toosinayso intaasuu derbiga albaabka deerta agteeda la istaagi jiray intaas adiga wixii sheekadiisa meeshaas intaas haasaabo intaas ugu dhici jiray maadaama dadka xaafada kala fogdgeyn oo inta badan ay sarkay adigoo soo baxay gabadhi way sugtay in la ceshay odaygu salaamu calaykum wallah salaamu calaykum intii laga duceysanayo le microphone wax bay maqlaysaa intii laga duceysanayo oo imaamku marka dadka u duceynayo aaminta ku hayaan wixii ka dambeeyo way ka tegi jirtay meesha marka salaadii waa la caaqim odaygu u tagay intaan markii la aadamo u tagay waa la caaqim salaadii aan la galay ma joogo ninka dhaxdu soo lugay gaariga ka yimid markaas u soo socday oo gabadhi markii salaada laga baxay odayga markii istir soo baxaya way xarootay oo taasay xatay marka meeshii xaafadii gidaarkii iska tira halkan bal qawowga gal way saa u fariisatay markaas uu soo socday abay maana awas soo taa laxdi kulay la ragaxlaanta u darante markaas laxdi baa ku usbuutay والله رجع على عاطفه رجع جابك يعني بعدين شايف ما وحلان ما هو وقتي وقتي يحب السعوديه وقت قاعد هذول العك هيستو بس كيس صراع على اختار ما لكن حلان توي والله شكل قصب والله اد بقى قصب شكل والله شكل قصب والله يخسر شكل لبعض انا كسي وضعي إيلو صح maadaama aan ku wixii xagga ka socoto sheekada labaad xalli berigii hore wadanku caadiga ahaa dadku isu furnaa ee la iska socon jiray la iska lugeyn jiray ee Soomaaliduna wax ku fiican tahay nabaduna beriga nabadna way jirtay Soomaalida wax ku fiican tahay hadii aad reer ku soo beeganto wax ku leeyahay Suuriya ana ila caawa halka ma seexanaysaa inta kan bal lagu kan neef bal lagu aqoon ba ila tahayba wallahi hadda malaha ma jirtay hadda ma jirtaan malaynaya sidii horta ma aha marka nin reeqooyo xagga waqooyi ka yimid ayuu hawa iska lugeynayo isla xamar lagu tagbaday awa lagu tagi jiray bil laba bil loo geli oo meesha u shaqatay marka isagoo iska lugeynayo iska soconayo markii uu fiid ay noqotay qorax sii dhacayso ayuu reer ku soo beegmo markuu koonfurta mariyay markaas ninkiiba السلام عليكم وعليكم السلام وحقك صعوتنا هي مقدشة كصعدها مقدشة ها ده هو وقت وقوة هراي يمكن نقول حبيني هالكم ما العاوز كسي حنيسا هالكم بريبات كسي عندهم تاع الوقت هي ما شاء الله هالكم بدرس كسي عند جوجل بوك هنا يو ده وحو كنت شيء صدام شاه بوك هنا وحد عنتدينا بل ولا كرنا يا بدرسوا مركزو عاركينا يرى إلى تبنشرة أيو عاركي موقتين markaasuu yiri inaan taayarna waayo markaasuu yiri gabadhaydu waa
gari waqooyi ana gabadheeda muxuu yaqaanaa Xaaskiisa. xaaskiisu yaqaanaa moogta gabadhana kanna wuxuu yaqaana tuu dhalay gabadheeda waa muslim Ay, tan yar rasuullabaa kasii yaryar booli lababa kasii yaryar uu yaabay ninkan ciyaalka qabo isagoo saas yaaban ayuu otaasuna markaasuu waa tii tan ka yarayd buu waa gabadheedii wey markaasuu ninkan rajin baad soo uu yaabay waa ta kasii yar taas markaa sidaa sideed bay jirta moogta Ay. malaa way iska gaaban tahay ta kasii yar tan kasii yar hadda waa lix sano iyo wax noocaas aad aragtid markaasuu iska sugayo markaasuu waa tii saddexaadna masuu wataa gabadheeda saddexaad wataa halkaas waxta gabadh iyada waa kaan laga laba jir wax noocay inay tahay ya ha yardee ay markaasuu taasna gabadhaadii haa ma taasuna markaasuu haa wallahi nin intan aan kaa cabina waa xaaraan intan aan kula sheegeysanayna waa xaaraan waxa weye iminkana waa sii soconaya yaal waad mahadsan tahay walwala ilaahay ii sahlo meel kale waa bal stitch markaasuu yiri may dee horta labadii mar dambe oo maxay ahayd dee sheekada oo maxaad ka xanaaqday hadda ninkan uu reebaya wuxuu leeyahay ninkan waxaad u geystay inuu si fiican inuu wanaajiyo doonayo xilligaana dee ma odhan karo iska sii soco idhaaf waxna kuma sameyn marka wuxuu isleeyahay sheekada waxa jira baa ogaati marka horta halkaas ayay waqtigii hore marisay ninkiina halkaas horta ku degay oo markii la maslaxay oo sheekada sheegay gabadheeda xaaska u naqaana gabadha xaaskaagina markaas uu waa anaa dhalay suuda waa inantaydii dheh markaas u fahmay anaa dhalay ku fahmay markaas is fahmeen marka horta sheekada soo saasay marka sheekada saddexaad sheekada saddexaad anigu aan qaato waxa weeye beri baa waxa leeyahay nin waalan kuley ragoo dadka qofka waalan waa iska gacan fudiya badanaa nin waalan baa riyihii magaranaysa gam ka dhigay meeshuu tagaba wuxuu ri arko hadda idaha malaayo geel iyo xoolaha kale meeshuu tagaba riyuhunbu gam ka siiya moogta dabeetu waa la yaabay in badan maruu riyaa leynayay deta maalintii dambaa intii baa la qabto masaa lagu new riyaha maxaad inaa rulaysaa baa lagu yiri moogta naclaa bohodkiyaal waxaan u laaya naclaa bohodkiyaal indhaha gaaladay leeyihin buu naclaa bohodkiyaal indhaha gaaladay leeyihin gaaluna noolaan jiri ninkaas waxa kusoo waashay marka banaanka waa lasoo tarxiilay sambeelaya carabta ninkaas horta kulli wadan halkaas kaga sii socon doonaa waa saxan suxi media iyo saxan suxi media group oo markasta idin soo gudbisa sheekooyin qosol badan si aan u qosolo idinkana u qososhaa aan wax faraxsanaan weydo farxadda wax loo dhigay lahayn sheekadaas sheekada afraad aniga waxaa jiray oday baa magaalada degana islaantiisa caano suuqa ku iibin jirtay caanihiisa ay iibin jirtay soo yara daahday habeenaha kamid ah maqribkii imaan jirtay maqribka ka yara dibdhacday mugtahay marka odaygii baa maqribka markuu soo tukaday masaajid ka imaado hooyadii ma imaata may balsoo maamadii raadiyey wuxuu u tagay iyadoo weelashii intay marka wixii intay adiga isku habeysatay inay dhaqaaqdo ay u dhiman tahay marka waxay tiri waxyar halkaa i yaraysta waxyar halkaa i yara sugo baan soo dhaqaaqayaa marka seena ugu mirqaansanaayo cirkaa soo marayay waxyar markii halkan waxaa dhowr tilaab buu qaaday isma ogeela ninkaas waa la wadaya marka xaggaasuu yara istaagay islaantii baa soo markii 2 daqiiqo gudahood soo agmartay waxaa soo agmartay islaantiisa ka dheer ka qurux badan ka xoog badan ayaa soo agmartay uu fiiriyo waa socoto tari aad ka socotay sug taadi maahe wuxuu joogo adi markii 5 daqiiqo qaadatay wax ka badan iyuu meesha tagay maba joogto kaasoo xaafaddu iska soo aaday soo yaaba hortaantee ka dhacday maxay laanta hoos bay noqotay xagee ka baxday soo xaafaddu imaaday
islaantina waa jiq odayga waxay leedahay naag kalu meesha ku sugayaa oo u ballansaday adiga marka hore waadii kulaaldi way markaad agmaraysay xitaa waxaa laga yaabaa inay tiro wada habelow nakeen waa maqli waaya ninkan halkan ay u taagan tahay lagu bilaaya tusilay markaa xaafaddu imaade saantiyo xumaadeen keysale jiq maxaa dhacay soo adiga xaggaas naag kale u taagnaa oo markaan kororsaday may wallahi igata may wallahi inaan ka aqrisanay ilaa arrinkii xaaji ay noqoto odayaal soo fadhiisto ninka dambey ilaa arrinkii xanuun ka yaqaan loo keeno arrinka wax ka yaqaano loo keeno oo islaantii la maslaxo dusha laga saaro ilaa tusbax dusha laga saaro oo wakaa islaantii la kari waaye marka wallahi sheekadaas ayagu لا نقشر ترى وحنون سوي كل شيء أحبي إن برنامج كأنا كسيدران شركتي شناد أيام كسوق بجوين إن شاء الله أي عشان waxa weeye sheekadaas waxay ahayd maalin baa waxaa dhacday iyada lafteedu waskam dee murqaanka iyo bahalka qaadkaas waxaa dhacday niman badan oo asxaaba saaxiibaaba waxay ku wada qaylinayeen xaafad guri hablo badan aad u joogaan ay ku qaylinayeen dabeetana qaybta fadhiga ay ku qaylayaan iyo suuriga aad u kala durugsan dabeetana waxa u dhaxeeya qolaalkii hablaha u dhaxeeya iyo daaradii hablo fadhiisanayeen dabeetana qolaalkii fadhigii ku qaylayeen namadu in badan bay fadhiyeen qayleen waa murqaamiso dabeetana mid baa kululaaday wax sir soo maydho musqushu galay social markuu galay ay biyo isku soo rogay soo dharkii halku xiran lahaa waa ilaa iska soo abliyo meesha fadhiya soo hormaray fadhigii buu galay inamadii buu tegey markii siri soo fadhiisay fadhiyay iyaguna ku yidhaa war wada qaawantay dharkii mi walle waa soo noqday dabeetana abliyo buu soo hormaray abliyo fadhiya buu arkay wuxuu siri كل بنت أنت عارفين حبلا أوصي شيء أنا هذا المكان مش مريض قاوني ده كرالي ولي وقاوي أي مركب مسوقي هاي مسوي اسمه ولي حسلي الله حبلي حد بحسين صور مريض قاوني سير هالي كلا حبلا أوصي ديني كما أحد حبلي هو يما مسؤول ولا حد المكان هالك مريض وقاوني والله طعمه هنا ويقعد على إلا هذا هو قوي لا قادكاس ميل inta in ka badan wallahi qaadkaas waa umadu waa gaaray ilaahay naga shartay ilaahay wadankeena ka joojiyo qaadkaas ilaahay ka midoobiyo burbur naqala family marka baalkaas oo qaadka la yiraahdo saladkaas ka cuna baan leenahay saladkaas ka cuna beeraha si fiican ugu baxay wala beeranayo la beeraya hadii la beerto si fudud buu baxaya nin walba loo midho salad meelaha qaadada maqaaxi la tagba laba geed ka dhig laba geed qaad ka dhig caafimaadku fiican dhan walba laakiin saladka inaad garaado leedahay kuma sheegayo qaadku waxa laga yaabaa markaa haddaad aaminto waxan waa niyadda waa niyadda dhisato ugu yeelaya saladka ku dhisay xidiga ku yeelaya hadda la jarnaa marka waxba ku dheeraan mayno shantii sheeko saasay caawa nagaga dhan tahay waxaan leenahay wada socod wanaagsan insha Allah sheekooyin badan waa idin soo gudbin doonaa nagu social media kala socda dhammaan waxyaaban soo gelino insha Allah waxaan idinkaga tegnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh